Taariikhda bani'aadamka waxyaabaha ugu dhibka badnaa ee soo maray waa colaadda iyo dagaalada. Waddan walba waddanka uu ka xoog badan yahay ayuu mar walba jeclaa inuu qabsado, sidoo kalena dadkooda uu addoonsado. Dagaaladan darteeda, sida dagaalkii koowaad iyo labaad ee adduunka, waddan walba waxa uu kala baxay cashar si haddii dal kale dagaal ama duulaan uu ku soo qaado isaga difaaco. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa waddamada aysan suurtagal ahayn in la furto ama la qabsado. Haddii aad ka hesho muuqaalada akhbaaraadka dunida, like saar muuqaalka, sidoo kalena subscribe saar channelka. Mahadsanid. Australia juqraafigeeda iyo halka ay ku taalo darteed waxay ka mid tahay waddamada aan sida sahalka ah lagu qabsan karin. Waddanka doonaya inuu ku soo duulo Australia waxa uu ku qasban yahay inuu aad uga dhisnaado ciidamada cirka iyo kuwa badda. Dhanka badda iyo hawadana waxay ka mid tahay awoodaha ugu qaalisan ee dal walba uusan lahayn. Dagaalkii labaad ee dunida, Japan waxay isku dayday inay qalalaase ku sameyso Australia, balse dagaalka inta uusan bilaaban ka hor ayay isaga laabatay. Taariikhda Australia waxay ka mid tahay waddamada ugu qalalaasaha yar ee dunida. Australia waxay aad ugu horumartay dhaqaalaha, waxay sidoo kale horumarisay awooddeeda xagga cirka iyo baddaba. Sweden. Dunida maanta waxaa loo kala awood badan yahay hadba sida loo kala dhaqaalo badan yahay. Sweden juqraafi ahaan waa waddan aad u yar, dhaqaaluhuna maadaama uu yahay awood xoog badan, dalna iskuma dayi karo inuu saaxiibtinimada dalkan si sahal ah ku dhumiyo. Sidoo kale, Sweden waa waddan buuro badan leh, waxaana adag in weerar toos ah ama qalalaase dhulka ah lagu sameeyo. Ciidamada Swedish-ka waxay aad ugu tababaran yihiin sida buuraha loogu dagaalamo. Suuragal ma aha dad ajnabi ah dhulkan inay si fudud ku qabsadaan. Xataa waxaa la sheegaa inay dhismooyin waaweyn ay leeyihiin kuwaasoo looga gamban karo nuclear-ka. Dhammaan dadka Swedish-ka ah waxaa la baraa askarinimada, qof walbana wuxuu yaqaanaa habka qoriga loo isticmaalo. Xaalad halis ah ama qalalaase amni ah, haddii uu dal kale duulaanku soo qaado, dowladda waxay haysaa qof walba hub ku filan uu isku difaaci karo. Si kooban, Sweden waxay ku jirtaa waddamada ay aadka u adag tahay dhaqaale ahaan iyo dagaal ahaanba in laga adkaado. Japan. Waxaa taariikhda lagu yaqaanaa Japan dagaal iyo colaad. Mareykanka inta uusan nuclear-ka ku garaacin Japan waxay daadaansan jirtay cid walba. Maanta Japan waxaa loo yaqaanaa caasimadda tiknoolajiyadda. Waa waddan dhaqaale ahaan iyo tiknoolaji ahaan aad u horumaray. Taariikhda dhulka Japan marnaba dowladaha kale uma suurtagelin inay qalalaase ka abuuraan. Iiraan waa waddanka keliya ee dalalka reer galbeedka iyo Israa'iil ay aad uga baqaan. Mareykanka si kasta uu isugu dayay inuu u diido Iiraan inay awood yeelato, haddana Iiraan cunaqabataynta iyo cadaadiska Mareykanka ma uusan cabsi gelin. Ciidanka Iiraan waxaa loo arkaa mid ka mid ah ciidamada ugu awoodda badan dunida, waxaana sidoo kale la sheegaa in ay si qarsoodi ah u haysato hubka nuclear-ka. Haddii qalalaase iyo dhibaato lagu sameeyo Iiraan, waxaa suuragal ah in dagaalka saddexaad ee dunida mar kale uu qarxo. Sidaas darteed, Iiraan maadaama uu saaran yahay cadaadis, hubkooda iyo tiknoolajiyadooda ma soo bandhigaan. Dowladaha, gaar ahaan Israa'iil iyo dalalka reer galbeedka, waxay aad uga baqaan inay Iiraan u soo dhowaadaan. Sidoo kale, Iiraan sida Sacuudiga shidaalka si raqiis ah uguma iibiso dalalka galbeedka qiime aad u jaban. Shiinaha. Waddanka Shiinaha waa waddan dhinac walba ka hormaray. Tiknoolajiyadda, hubka casriga ah iyo ciidamadiisa aadka u tababaran
iyo dhaqaalaha xooggan ee Shiinaha uu leeyahay waxay ka dhigtaa dal awood weyn ku leh dunida. Mareykanka oo aad uga xun awoodda dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda Shiinaha mar walba wuxuu isku dayaa inuu dib u dhigo, balse Shiinaha marnaba dib uma uusan dhicin. Wuxuu haystaa hub casri ah oo Mareykanka qalqal gelin kara. Dhanka dhaqaalaha, Shiinaha waxa uu noqday mar walba waddanka ugu guusha badan ee dunida. Sidoo kale, Shiinaha waxa uu ku jiraa dalalka leh hubka nukliyeerka. Turkiga waxa uu ku yaalaa juqraafi ahaan meel istiraatiiji ah. Sanad walba tirikoobyada la sameeyo ee waddamada ugu xoog badan dunida, Turkiga waxa uu ku jiraa 10-ka dal ee ugu horeeya. Turkiga waxa uu ka mid yahay waddamada Muslimiinta ee ugu xooga badan. 100 sano ka hor, dowladaha galbeedka waxay isku dayeen in Turkiga ay qabsadaan, balse si kastoo ay isugu dayaan inay Turkiga u qabsadaan ciidamadiisa awoodda badan darteed, waxa uu noqday waddan ka guuleystay waddamada doonayay inay kala qaybsadaan. North Korea waa waddan haysta hubka nukliyeerka, waxa uuna ka mid yahay waddamada ugu halista badan ee dunida. North Korea waxaa lagu hogaamiyaa maamul dictator-nimo ah, dadkuna waxay hoos imaadaan amarka Kim Jong-un. Waddanka si kastoo uu awood u leeyahay, haddana waxa uu ka mid yahay waddamada ugu faqiirsan ee dunida. Wax walba ayaa waddankan mamnuuc ka ah, xataa habka timaha loo jarto, iyo waxaa mamnuuc ah in dadka ay internetka u galaan sida ay doonayaan. Waddankan mar walba waxa uu cabsi geliyaa Mareykanka maadaama hubka nukliyeerka ay haystaan. Mar walba dhaqdhaqaaqa askartooda Mareykanka waxa uu moodaa in dagaal lagu soo qaadi rabo. Si kastoo ay ahaato, North Korea waa waddan awood weyn ku leh dunida. Waxaa sidoo kale la ogyahay in xiriir dhow uu kala dhexeeyo Shiinaha. United Kingdom. Taariikhda tagtay ee dunida, Ingiriiska waxa uu noqday waddan gumaystay qaybo badan oo dunida ka mid ah, waxaana loo yaqaanay xilligii gumaysiga boqortooyada aysan qorraxda ka dhicin dalalka kala duwan ay gumaysteen awgeed. Inkastoo awoodda uu lahaa maanta uusan lahayn, haddana waxa uu leeyahay awood muhiim ah oo nolosha iyo adduunkaba istiraatiiji u ah. Luuqadda adduunka in ay English noqoto waxay astaan u tahay awoodda iyo saameynta weyn ee uu Ingiriiska leeyahay. England sanadkii tagay waxay ka baxday ka mid ahaanshaha Midowga Yurub. Waxa uu Ingiriiska leeyahay awood xoog badan, waxa uuna ku horumarsan yahay dhan walba: dhanka dhaqaalaha, weerarada cirka iyo dhulka. Ruushka ama Russia. Ruushka waa waddanka labaad ee ugu awoodda badan dunida. Si kastoo uu u yahay waddan aad u qabow, waxaan suuragal ahayn in dhexdiisa lagu dagaalamo. Ruushka juqraafi ahaan waa waddan aad u weyn oo buuro iyo duur ah, waxaana la sheegaa aagag qarsoodi ah iyo difaac xoog badan inuu leeyahay. Burburkii Midowga Sofiyeetka kadib, Ruushka waxa uu bilaabay in awooddiisa uu dib u soo celiyo. Maanta waxaan suuragal ahayn in waddan Ruushka uu daandaansado. Ruushka waxa uu ka horumaray dhan walba: tiknoolajiyadda, hubka iyo dhaqaalahaba. Mareykanka waa waddanka koowaad ee ugu awoodda badan dhinac walba: aqoonta, dhaqaalaha, ciidanka iyo tiknoolajiyadda. Waxaana loo yaqaanaa dalka ugu xooggan adduunka. Hubabka casriga ah ee Mareykanka, marka laga soo tago gantaalada qaaradaha isaga kala gooya, waxa uu haystaa gantaalo hawada laga kontarooli karo. Waddanka ama taargetka iyo hadafka ayadoon gaarin ayaa meelo fog laga qarxin karaa. Si kastoo ay ahaataba, Ameerika lacagtiisa dollarka inay noqoto lacagta kaliya ee adduunka wax lagu kala iibsado waxay Mareykanka u tahay faa'iido aad u weyn. Haddii laba waddan ay kala iibsadaan iyagoo isticmaalaya dollarka,
waxaa isticmaalka doolarka dartiisa faa'iidaya Mareykanka hubka uu sameeyo waxa uu ka iibiyaa dunida oo dhan. Ugu horreyn, Mareykanka waxa uu isku diraa laba koox, kadibna waxa uu ka wada iibiyaa hubka ay isku dagaali lahaayeen. Dadka ku dhaawacma dagaaladaasna waxa uu ka iibiyaa daawada. Goobaha burburka iyo khasaaraha soo gaarayna waxa uu u soo diraa shirkadaha dhismaha. Si kooban, Mareykanka hal dhagax ayuu ku kala dhuftaa 3 shimbirood. Taasna waxay ka dhigtay Ameerika super power-ka dunida.